gaariga ugu dheer uguna qaalisan gawaarida raaxada ayaa ka soo dhex muuqday gudaha magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud oo warbixin inooga diyaariyay gaarigani. gaariga waa lemon qiimaha Muqdisho oo ku yimid waa ku dhawaad 80,000 oo dollar laakiin marka loo eego qiimaha gawaarida la midka ah ee yaala dalka Mareykanka waa ku dhawaad 1 milyan. waa noocii gaari ugu dheeraa aan ku arko magaalada Muqdisho dhererkiisu waa 10 mitir ballacuna waa mitir iyo bar masaafo ahaan wuxuu jari karaa halkii saac 160 kilomitir haddii uu haysto wada nadiif ah sida uu sheegay wadaha gaarigan. inta aad ku dhex jirto gudaha gaariga lemon waxaad helaysaa adeegyo kala duwan lagu kayf ballaa daawan karto iyo koobab kala duwan iyo goob kale oo aad u qurux badan waxaan markaan u dhaqaaqaynaa qaybo magaalada. Muqdisho inaad ku dhex kaxayso gaariga ma ahan arrin sahlan sababtoo ah Muqdisho isbedel adeegsiga gaadiidka uu ka muuqdo iyo dadweynaha oo gaarigan u arka mid ku cusub oo mid walba uu doonayo inuu ag tago. laakiin annaga inta aan ku jirnay gudaha gaariga ma aanan dareemin cabsi iyo caajis toona. xasan yuusuf xasan tuuxu waa maamul ku xigeenka ganacsato gaarigan Muqdisho keentay oo la magac baxay New Muqdisho Limo Service. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xasan yuusuf xasan tuuxu bashash waxaan agaasimo ku xigeenka shirkadda New Muqdisho Limo Service oo baabuurkan iyo baabuur kale oo casri ah keentay magaalada Muqdisho waxaan idin haynaa adeegyo aad iyo aad u qurux badan oo baabuurkan iyo baabuur kale oo ayagana casri ah oo ayagoo kale aysan magaalada joogin ama hore aan loo keenin ayaan idin keenay. waxaa kaloo jira waxaa nagu eliyay baabuurkan inaan keeno magaalada Muqdisho in ardayda ama dhalinyarada ama bulshada Soomaaliyeed ay la jaan qaadaan adduunka kale sababtoo ah waxay tahay baabuurkan nuuciisa limo kale ma yaalo magaalada Muqdisho waa gaari ugu horeeyo la keeno waa gaari aad u qurux badan qofkii gudihiisa gala oo dareemayo inuu markaasi farxad iyo rayn oo dareemayo inuu meel qurux badan joogo marka dadkaasi si macnaha ay ula qayb qaataan maalmahooda farxadaha maalmahooda quruxda badan ay ku qaataan ayaan ugu talagalnay sida ardayda caalamka iyo dadka bulshooyin kale ee dunida ku nool ay baabuurkan iyo kuwa kale oo ka qurux badan ay u helaan anagana insha Allah taala kama daalayno inaan baabuurkan iyo kuwa kale oo ka qurux badan bulshadana ugu adeegno insha Allah taala magaalada baabuurkan wuu tagay oo ku socday adeegyo kala duwan waan qabanay walow markaasi uu ku cusbiyo maalmo kooban oo jooga haddana bulshada Soomaaliyeed aad ay noo soo dhaweeyeen markaan wadada marayno saxmadan kala kulanaa baabuurkan isku sawirno baabuurkan meeqa baabuur waa su'aalo badan laakiin aad iyo aad ay bulshada noo soo dhaweeyeen waana arki doontaan insha Allah muuqaalka aad aan kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad noo soo booqateen iyo barnaamijka aad ka sameeynaysan baabuurkan. isbedelka ammaanka iyo horumarka magaalada Muqdisho waa mid ku dhiirigelinaya ganacsatada in maalgashi ay ku sameeyaan caasimadda. adeegyada la ii sheegay in gaarigan uu sameyn karo waxaa ka mid ah in xafladaha aroosyada uu ka qayb qaatay galbiska labada iscalmaday dhalashooyinka qalajibinta ardada iyo soo dhaweynta dadka garoonka aadan cadde ka soo degaya. intii aan maraynay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa nagu soo xoomayay dhalinyaro badan oo doonaysa in gaariga ay arkaan waxaan gaarnay beerta nabadda dad badan ayaa goobta soo buux dhaafiyay mid walbana waxa uu doonayay in gaariga uu isku sawiro. waxaan la kulanay dhalinyaro dumar iyo rag ahaa oo mid walbaaba uu doonayay in annaga uu nala hadlo.
Ifraax Umar Maxamuud waxaan ku arkay gaarigan beerta nabadda anigoo jooga iska maashaalayo waa gaari aad u qurux badan waan dhexdiisa wuxuu leeyahay maxaa la dhahay meel fadhiisto oo wax lagu cabi karo shaah iyo waxaas kafeteer akhtar oo leeyahay horta waa gaari qurux badan waxaan jeclaan lahaa in xafladeyda oo qalinjibinta uu soo dhawo inaan ka qabsan doono aroosyada iyo caruusyadaas lagu qabsan karaa magacayga horta waxaa Maryam waxaa ka imaada degmada Shibis hadda waxaan joogaa beerta gaarigan sikidiisa kula kulma aniga oo bixi rabo wallahi weligay gaari noocaan oo kale Muqdisho kuma arkin oo faraxsanahay inaan arko dhexdiisa loogu soo casuumo waxyaabo badan yani aan ka dheehday dhexdiisa telefishin madadaalo aad u badan cabitaan lagu cabi karo aan ku sheekaystayba oo kafeteeri uu leeyahay dhexdiisa madadaalooyin aad u badan maasha Allah wallahi guriga u malaysa inaan seexdaa gaari muhiim ah وصان ودير دل غور عملت هذا هذا فرحسنا باور مر دوري ساعه كويس يعني حاول بيتنا وضع اركي وعايز كور دون marka arkaysa maxaa kugu soo dhacay waxa igu soo dhacay inay wili baawr noocan marka caawina igu horeyso aad ay faraxsana wili ma ka daawatay shashada ma wili ma ka daaway caawina igu horeyso isbedel weyn ayaa ka jira caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dadku waxay ku dhiiranayaan in maalgashi ay ku sameeyaan dalkooda oo adeegyo cusub ay ku soo kordhiyaan waana taamida keentay in gawaarida sidan oo kala qaaliga u ah la keeno magaalada Muqdisho Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV Muqdisho